wax badan ka ogow xiriirka jacayl ee muddada soo qotomaya Ismaaciil Axmed Aadam iyo sidoo kale Marian Cabdi oo Soomaalida in badan ay yaqaanaan Kenyada madow isla markaana ay tababarad in badan caanka ah kayga Soomaalida oo arooskeedu ka dhacay magaalada tan Muqdisho caasimada Soomaaliya gaar ahaan haddaba wax badan ka ogow Ismaaciil Axmed Aadam iyo sidoo kale Kenyada madow sida isku barteen iyo halka uu ka bilowday xiriirkooda jacayl Ismaaciil Axmed Aadam indoos iyo sidoo kale Mariya Xuseen Axmed waxay isku barteen ama ay ka wada xiriiri jireen barta aad loo isticmaalo Facebook xiriirkoodu wuxuu ka bilowday barta xiriirka bulshada inta badan ay ku kulmaan ee Facebook iyadoo xiriirkoodu ay kala joogaan laba wadan oo kala fog Ismaaciil waxa uu ku noolaa wadanka Masar gaar ahaan magaalada Kaahira halka ayadu Mariam ay ku nooleed dalka Toronto ayay ugu dambeyn meherkoodu wuxuu ka dhacay ee magaalada Muqdisho waxaan leenahay labadiis ku warwad khayr qaba kala hela guulow ka yeel halka meherkeedu uu ahaa $50,000 Mariam ama Kenyada madow meherkeedu wuxuu ahaa Marian Cabdi barteed wuxuu ku soo qortay ugu dambeyn waan xarooday waxaan u mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala oo waafajiyay nolosha aan maanta galay waxaan ka wareegaba waxaan ka cabsadaba wuxuu ila jeclaaday qofka adduunka ku qaalisan uguna dulqaadka badan ilaa qofkii Kenyahayo dulqaad uma yara lool wuxuu ila jeclaaday Ismaaciil Axmed Aadam oo ah qofka aan ka dhex doortay intaas oo qof oo adduunka saaran waan la dagaalay waan ka tagay waan wareeriyay marraba ma dhihin marraba caro ima tusin wax walba aan sameeyo way ugu dhiirigeliyaa way horumarkayga waa kiisuna waa kayga waan ku faraxsanahay inuu Ilaahay ka dhigay qofka nolosha la wadaagayo together forever waxaan mahad celinayaa waalidiinteena asxaab iyo qaraabo dhammaan oo naga garab istaagay farxadeena hawshan Ilaahay ka sokay ayaga ayaa mas'uuliyadda saarnayd si qurux badan way u guteen wax si qaas ah ugu mahad celinayaa walaalkay Axmed waxaan si qaas ah ugu mahad celinayaa walaalkay Ibrahim Axmed iyo ugaas Farxaan oo si hargar la'aan ah inagu howlgalay si maalinteena u noqoto mid qurux badan ugu dambeyn asxaabta igu xiran waxaan idin leeyahay Kenyada madow guurso saa u dhahayseen ugu dambeyn way aqbashay ee hambaliyada iyo ducadu waa xaqiina bs xajigaygu waa kamerman asalax aad u maasantihiin $1 Kenyada madow ama Mariya Xuseen Axmed iyo sidoo kale Ismaaciil Axmed Aadam indoos wuxuu meherkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan hotelka Pizza House ee magaalada Muqdisho waxaan leenahay barakallah lakuma wa baraka alaykum jama'una fi khayr isku wara huwa qeyl qabana kala hela xiriirkani wuxuu ahaa mid in muddo ay soo dhisayeen iyadoo in muddo marar badan isku dhaceen balse dulqaad badan uu muujiyay ugu dambeyn wuxuu hantay geesiyada ama Kenyada madow xiriirkii Mariya iyo sidoo kale Axmed ay muddo soo wadeen ugu dambeyn waa ka bariheeda ay gurteen waa ka ugu dambeyn amiga ay nolosha kala hayeen wada gaareen waa ka ugu dambeyn hambaliyadooda aan kaga soo gudbinayno YouTube channelada Sono Official iyo sidoo kale Daaweena Gaatama channel haddaba haddii ay channeladan yihiin markii kugu horeysay aad daawanayso fadlan noo like garay noo share garay subscribe ka ilaabin inta maxay noo tahay dardar sidoo kale dhiirigelin Mariya iyo sidoo kale Ismaaciil markeeda ugu horeysay waxay isku barteen mareegta Facebook xiriir dheer kadib ugu dambeyn waxa ay noqdeen kuwa nolosha isku fahma kuwa nolosha isku afgarta ugu dambeynna wuxuu meherkooda ka dhacay Pizza House ee magaalada Muqdisho halka ay Mariya joogto hadda magaalada Muqdisho walow Ismaaciil uusan joogin magaalada Muqdisho uu ku sugan yahay dalka Masar haddana xiriirkoodii inta badan wuxuu ay waqti ku qaadan jireen barta Facebook iyo sidoo kale barta WhatsApp oo inta badan ay ka wada hadli jireen Mariya waa gabar YouTuber ah halka Axmedna uusan YouTube fikir ama macno ka badan ka haysan haddana wuxuu ku qanacsanaa in xaaskiisa ay tahay YouTuber caanka ah gudahaangayga Soomaalida haddana Mariya iyo sidoo kale Ismaaciil waxa ay markeedu ugu horeysay si live ah ay isku arkeen ay ahayd xilli
ay Kenya joogtay isaguna uu Masar ka baxay si uu jacaylkiisii ugula kulmo balse intaas oo idil wax social ah lama keenin oo social media jacaylkooda iyo xiriirkooda lama keenin balse ugu dambeyn waatan maanta uu social media soo dhexgalay xiriirkoodii aad u maasantihiin fadlan adinkuna asxaabay commentiga hambaliyada nagala qayb qaata like commentiga subscribe-ka nagala qayb qaata asxaabteedinkuna waxa idin leeyahay commentiga nagu soo karbaasha hambaliyo soo qor subscribe-ka naga ilaawin like-tuna hanaga ilaawin waxaan leenahay labada dhamaane wada jirey nabad kala guulow ka yeel guurkii lagu nastay lagu nagaadee wada jirey nabad kala guulow ka yeel ayaan leenahay